hoggaanka sare ee Ahlusunnah wal Jamaaca ayaa loo ballan qaaday inay heli doonaan 20 xildhibaan ee ay ku lahaayeen golaha wakiilada Galmudug balse taas beddelkeed shuruud culus ayaa la hordhigay. Shuruudan maxay tahay? Maxayse salka ku haysaa shuruudda la hordhigay? Sidoo kale ayaa u ballan qaaday inay heli doonaan xildhibaanadii ay ku lahaayeen golaha wakiilada Galmudug. Warbixintan ayaan idinku eegi doonaa. Fadlan boggan haddii aad ku cusub tahay like saar kuna soo biir saaxiibada halkan kala socda macluumaadka halka aynu ku baahino. Sidoo kale macluumaadka halka aynu ku baahino la wadaag saaxiibada kale. Aynu ku bilownaa. Galmudug dhawaan waxaa la filayaa inay ka dhacdo doorashada dowlad goboleedka Galmudug, gaar ahaan doorashada baarlamaanka iyo madaxtooyada oo la filayo sanadkan bartamihiisa inay ka qabsoonto deegaanada maamulka Galmudug, gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb. Musharaxiin dhowr ah ayaa ku hardamaya kursiga ugu sarreeya hogaamiyaha Galmudug. Sidoo kale tiro musharaxiin ayaa u kala tartamaya kuraasta golaha baarlamaanka ee maamulka Galmudug. hoggaanka sare ee Ahlusunnah wal Jamaaca ayaa mar kale fursad loo siin doonaa inay ka mid noqdaan ama saami ku yeeshaan xildhibaanada golaha wakiilada dowlad goboleedka Galmudug, sida aynu ku helnay macluumaad rasmi ah oo ku aadan arrimaha doorashooyinka. Baarlamaankii Dhuusamareeb lagu yagleelay dabayaaqada sanadkii 2019 waxay hoggaanka sare ee Ahlusunnah ku lahaayeen 20 xildhibaan, inkastoo markii dambe 20kaas xildhibaan ay bedeleen mowqifkoodii isla markaasna aysan garab ku siin hoggaankii sare ee Ahlusunnah dagaaladii lagu halaagmay ee looga saaray Guraceel, Dhuusamareeb iyo sidoo kale deegaanka Bohol intaba. haddaba hogaamiyaha guud ee Ahlusunnah Macalin Maxamuud Sheekh Xasan oo ku sugan deegaanada Galmudug ayaa wada kaambeyn xooggan oo ku aadan sidii uu soo saari lahaa mid ka mid ah musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha Galmudug, iyadoo loo ballan qaaday in 20 xildhibaan mar kale ay dib u heli doonaan saamigoodana uu ka badnaan doono 20kaasi xildhibaan. dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay in macluumaadka la xiriira in ay siin doonto saami hoggaanka sare ee Ahlusunnah inuu ka yimid, isla markaasna ay doonayaan in hoggaanka sare ee Ahlusunnah ay wax ka dhisaan Mahad Maxamed Salaad, agaasimihii hore ee NISA oo hadda doonaya inuu noqdo madaxweynaha hoggaanka sare ama hogaamiyaha sare ee Galmudug, sida macluumaadka aynu ku helnay. ilahan waxaan ka soo xiganay xubno ka agdhow Mahad Salaad oo sheegay in Mahad Salaad uu ku qanciyay Macalin Maxamuud Sheekh Xasan inuu wax ka dhiso, isla markaasna uu heli doono saamigii uu ku lahaa xubnaha golaha wakiilada dowlad goboleedka Galmudug, sida xogta aynu ku helnay. wixii macluumaad ee arrintan ka soo kordha wararkeena dambe ayaad ku dhageysan doontaan.